kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxaa ugu waaweyn madaxda Falastiin oo isku raacay in aan ciduna masali doonin ama afkooda ku hadli doonin qodobada kale daawadayaal ku maqli doontaan wararka waxaa dhinaca diblomaasiyadda dalalka Greek iyo Turkiga oo gaashaanbuurta NATO ku dhawaaqday inay dhexdhexaadisay isla markaana ay ku dhawaaqeen inay wada sameysteen guddiga xasilinta sidoo kalena waxaa idin hayaa iyadoo xiisada wali halkaas ka sii jirto iyo madaxda dalka Turkiga qaar kamid ah oo ku dulmaray diyaaradaha dagaalka area la isku haysto qodobada kale daawada ku maqli doontaan wararka waxaa dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan waxaa kamid ah asduulimaadkii rasmiga ahaa ee dhinaca agabka iyo kargooga oo u dhaxeeya Israa'iil iyo dalka isku tag Imaaraadka Carabta ayaa asaguna rasmi u bilowday waxaan sidoo kale idin hayaa daawashana qiimaha leh qodobo kale iyo waxyaalo waaweyn oo ay kamid tahay Iran oo sheegaysa inay dayax gacmeed ay dad saaran yihiin oo dulyaal iyo cirbixiyaal saaran yihiin markan hawada u dirayso qodobadaas iyo kuwa kale weeye sidoo kale waxaad maqli doontaan faaqidaad iyo faalle buuxda oo ku saabsan arrimaha caalamka ka taagan gaar ahaan caalam islaami qadiyadka waaweyn iyo arrimaha Soomaalida arintaas waxay ka khusayso iyo waliba xiliyadan adag ee Soomaalidu ay soo gashay iyo sida uu saameyn karto isbedelada xooggan ee dunida ka dhacaysa xarunta sirdoon ee soo qadar laga sameystay iyo waliba qodobo kale aan ku bilaabo qaybtii koobaad daawadayaal madaxweynaha ninka u tartamaya dalka Mareykanka Joe Biden ee madaxweyne ku-xigeenkii hore ahaa jiray ayaa khadka telefoonka sheegay inuu kula hadlay qoyska Jacob Blake oo ahaa nin madow oo 7 xabadood laga dhuftay dhabarka magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin kaasoo ay sii raacday mudaharaado waaweyn oo halkaas ka dameeyay isaga oo la hadlayay asagoo hadlayay oo ka hadlayay meel kaniisada ayuu sheegay in uu tagay magaalada isla markaana uu go'aansaday inuu khadka telefoonka kula xiriiro Mr. Blake ayaa war qoraal uu soo saaray waxa uu sheegay in uusan isdhiibi doonin xataa hadii uu dib lugihiisa ugu istaagi doono iyo xataa hadii uu saarnaa doono gaari gacan mid ku doono waxa noqotay wuxuuna sheegay inuu ilaasho doono ama uu dacwooyi doono xuquuqdiisa lagu tuntay iyo toogashada bahlimada ee booliisku ay u geysteen arrintan waxay imaanaysaa iyadoo 2 maalmood ka hor madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo tagay magaaladaasi Kenosha uu diiday inuu la kulmo qoyska Blake ee madowga ah iyo inuu sidoo kale qaabilo isaga laftiisa kadib markii uu sheegay inay qoysku go'aansadeen inay qareenada halkaas keenaan taas oo ku tilmaamay in isaga u qalmin halka dagaal socda dawada wararka waxaa dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan ee dalalka Turkiga iyo Greek ayaa gaashaanbuurta NATO waxay sheegtay in ay u kala dab qaaday xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg oo barta Twitter ka qaatay ayaa sheegay in gaashaanbuurta NATO ay ku guuleysatay in wada hadallo hordhaca ay u furto labada dal gaar ahaan kuwa dadban Mr. Stoltenberg ayaa warka uu soo saaray barta Twitter-ka wuxuu yiri Greek iyo Turkey waa laba dal oo qiimo ah ama waa laba dal oo taxaaluf oo qiimo u leh gaashaanbuurta NATO sidoo kalena wuxuu ku tilmaamay gaashaanbuurta NATO ay tahay wuxuu ku sifeeyay goob aad u wanaagsan oo markay noqoto wada tashiga iyo waxyaalaha walaaca dhinaca amniga ah oo dhan lagu wada sheer gareeyo ama lagu wada wadaago wuxuu sheegay in uu aad iyo aad ula socdo wuxuu ku sifeeyay isku soo dhawaanshaha labada dhinac ee u helida xal waara taas oo hoos loogu dhigayo wuxuu ugu yeeray xiisada halkaas ka taagan iyadoo oo ay gaashaanbuurta NATO mar walba ay daba socoto wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga ayaa goor si horeysay oo xalay ahayd cadeeyay in ay Ankara taageersan tahay qorshaha wuxuuna sheegay in si loo dejiyo xaaladda ay qorshaha ay wada gaashaanbuurta NATO ay taageerayso laakiin dawladda dalka Greek ayaa sheegtay in aysan ilaa hadda ku kalsoonayn qorshaha waxayna sheegeen in aysan ilaa hadda wax wada hadal aysan gali doonin gaashaanbuurta NATO ayaa sheegtay in Turkigu uusan wax shuruudo ku xidhin wada hadallada waxyaalaha tan la sheegay muhiimka ah ayaa waxay u muuqdaan ayaa leeyahay in guddi la sameeyo kuwaas oo noqon doona guddiga warwareynta iyo waliba u kala dabqaadista labada dal iyo xisbidejinta aagga la isku haysta ee badda iyadoo taas ay jirto ayaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Turkiga General Hulusi Akar waxa uu ku diyaaradda F-16 oo ay galbinayaan laba diyaaradood oo kale ku dulmaray aagga la isku haysto gaar ahaan meesha ay ku dhamaato badda Aegean ee xagga dalka Greek iyadoo ku dhawaatay ayaa la sheegay dalka Greek dowladus kan ayaa ahaa ayaa leeyahay inuu indhayo dusha ka eego qulqulka maraakiibta dhooban badda Mediterranean-ka iyo barigeeda iyo sidoo kale isdhereerinta ciidanka dalka Turkiga iyo sida uu habaysan yihiin isagoo oo markaasi u muuqday inuu hoos u soo wada fiirinayay halka ay xaaladdu ka marayso dalkiisa gaar ahaan markay noqoto hubinta ayaa la amniga ka hor inta uusan diyaaradda fuulin ayaa la arkayay isagoo la qalabeenaya wasiirka gaashaandhigga oo mar dabana xarunta gaashaandhigga ay ku leedahay barta Twitter-ka la soo geliyay isagoo isu diyaarinaya duulimaadka maadaama uu ka mid yahay ciidamadii cirka ee dalka isla markaana uu yahay ciidamada iyo saraakiisha ugu khibrada badan dalkaasi diyaaradda ayaa u muuqatay in uu si xooggan ay u dheedeysay ayaa la yiri waxa halkaas ka soconaya asagoo diyaaradda ka fuulay angalka diyaaraduhu ka kacaan ama lagu xareeyo barta backing ah taasoo muujinaysa in dawladdiisu ay ka go'an tahay inay hubiso awoodda ciidankiisa halkaas ay ku leeyihiin iyo dhaqdhaqaaqeeda qaybta labaad ee wararka waxaa dhinaca diblomaasiyadda sidoo kale qaybta koobaad ee falanqaynta ku soo dhawaada daawadayaal
kulanti wanaagsan daawadayaal jimcaha geegsan qaybtan waa qaybtii falanqaynta daawadeysana qiimaha leh waa qaybtii koobaad falanqaynta maanta waxaanu ku eegi doonaa isla markaana daawashada qiimaha leh aad xoog ugu saari doonaa arrimaha la xiriira bariga dhexe arrimaha la xiriira mustaqbalka caalamka islaami ururka islaamka OIC sidoo kale jaamacadda carabta cilaaqaadkan cusub arrimaha siyaasadda adduunka kusoo korodhay iyo sida dhiilasha ama heshiisyada u turjumayaan siyaasadda dhabta ah ee dunida tusaale ahaan talaabooyinkan dalka isku tagay imaaraadka carabta ay qaadeen iyo waliba madaxda hadirta maanta caalam islaam hogaamisa iyo ururada ku dhex jira oo dhamaantood u muuqda in ay talada caalam islaami ay gacanta ay gashay dad maafiya ah oo maartay danqoofnimo badan loo shaqeysanayo aysan jirin wax maartay dan guud oo maanta laga wada shaqeynayo si kastaba ha noqotay marka waxaan soo kale eegi doonaa bal sida marka uu qofku ama dalalka ama madaxda qaarkood ay isugu hawlaan inay xoogooda dhan u saaraan ama ay xoogoodan u saaraan inay dalalka shisheeye cilaaqaad la yeeshaan sida ay danta dalkooda uga gudbi karaan oo ay uga talaabsan karaan iyo sida u sahlanaa karto inaga maxay naga hoosee karaya tusaale maxay ka noqon kartaa maxayse mar walba u noqotaa in loo dhaliilo dadka dalalka shisheeye gacansaarka dhowla leh ama heshiisyada la galay ama kalsoonida faraha badan ka samaystay bedelkii ay dadkooda la samaysan lahaayeen mase laga yaabaa arrintan inay mar kale dilaacdo arrimahaas oo dhan ayaynu ku falanqeyn doonaa isla markaan ku eegno horta sida ogtihiin toddobaadkan waxa uu noqday maalintii isniinta ahayd wixii loo gaaray yacni mid jawigii caalam islaami ama dalalka islaamka wax weyn ka bedelay duulimaadkii ka duulay magaalada Tel Aviv garoonka diyaaradaha Ben Gurion International Airport la yiraahdo ee ku wajahnaa magaalada Abu Dhabi waxa uu ahaa milestone ama wax loo yaqaan markaasi tallaabo kale oo hoosta ka xariiqday guusha ay Israa'iil ka gaadhay dhinaca diblomaasiyadda iyo waliba sida ay dalalka Carbeed ee maanta iyo madaxdoodiiba ay u muujiyeen halka ay qadiyaadka qaarkood ka taagan yihiin sidoo kale waxaa jira dadka arrimaha wararka caalamka ku xiran ama wargeysyada dunida ee dhinaca sirdoonka ama se hurfadhi media ku xiran aad ugu xidhan waxay aad ugu dheregsanayeen arrimahan inay ahaayeen waxyaalihii aynu 3 sano 4 sanadood ugu dambeeyay waxyaalahan wararka aynu sheegnay iyo xogaha aynu helinay diblomaasiyadeed inay dhamaantood jireen waxyaalo hoos u shaqeynayay oo dadka shacabka laga qarinayay oo ah yani in cilaaqaadkan uu jiray waxaana arrintu ay moodaa inay sii maartay speed garowday ama sii dheeraysay intii uu talada qabsaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo asagu dan uu kale yahay hadda arrintan aad iyo aad u danta ugu weyn uu kale yahay ay tahay dabcan tan dib doorashadiisa uu isleeyahay arrimaha caalamka waxaad ka qabatay waayo madaxweyne Trump oo aad ugu eedeynayay inuu marka hore oo dhan ku tuntunsaday shaqooyinka Mareykanka inuu hagaajiyo haddana waxa aad loogu eedeynayay inuu kala furfurwado oo dunida hadday tahay hadday Mareykanka gudihiisa tahay iyo hadday ururadii Mareykanka heshiiska la ahaa sida gaashaanbuurta NATO sida Europe oo waxyaalo badan uu kaga baxay sida qaramada midoobay oo ururo badan ka saaray dalkiisa sida maaragtay waxa cid kaliya marka hadda u muuqata inuu heshiis ama cilaaqaadkooda wax ka qabtay ay tahay Israa'iil halka xeelarayaasha kale ay sheegayaan tan lafteedu waa ku meel gaar ayaga lafkooda ugu soo jeesanaya xeelarayaal badan baa qaba oo xitaa uu ka mid yahay John Bolton ninkii asaga amniga qaranka kale tali jiray kana mid xubnaha ugu dhow taariikhda soo jireenimada dhinaca siyaasadda ee Mareykanka iyo Israa'iil isku tola dadka isku tola loo yaqaan isagu wuxuu leeyahay waxaan oo dhan waa 40 sano dambe ayuu runtii maartay ku adkeed doona Israa'iil ayuu leeyahay waana inta badan waana dhaqan Mareykanka u yaqaano madaxdoodu oo alaaba ayagu waa dhaqan laga yaqaano waayo xilliga doorashada lagu jiro dadka maartay Yuhuudda ah ee ku dhaqan Mareykanku door weyn bay ka ciyaaraan hadday tahay dhinaca dhaqaalaha hadday tahay dhinaca warbaahinta iyo dhinaca ololaha ganacsato badan bay leeyihiin warbaahin badan bay gacanta ku hayaan door aad u weyn bay ka ciyaaraan ururo waxay leeyihiin aad u adag oo ururka la yiraahdo ururka xiriirka Ameerika iyo Israa'iil oo kale urur maartay ka mid ah ururada ugu awooda badan ee ururada ka jira dalka Mareykanka oo kale ah marka waxaa tusaale ahaan loo soo qaataa tusaale ahaan madaxweynihii hore Obama markii 4 sano ee hore Obama joogay waxaad mooday inuu aad iyo aad ula shaqeynayay ama waxyaalo badan oo jardhaaf u sameeyay Israa'iil laakiin 4 dambe ilaa iyo muddo 30 sano ku dhawaada wuxuu noqday madaxweynihii koowaad ee Mareykanka ee ogolaada in qaraar ka dhan ah Israa'iil la maaragtay la meel mariyo kaasoo waliba haddii aan ruushku wax ka gogi lahayn sida xogtiisu mardama soo baxday oo Netanyahu uu mardama sheegay in ruushku ku hagoogtay oo qodobo badan uu ka saaray ruushku in maaragtay ay Israa'iil ku noqon lahayd aad iyo aad mid khatar ugu ah oo ay ku jirtay xataa ilaa xad in la aqoonsado Falastiin marka haddaba arrimahan ciyaartan ugu weyn hadeerto waxaa la yaab noqotay dadku waxay ka fiiriyaan dhowr arrimood ama dhowr chapter baa laga fiirinaya waa marka koobaad
dowladda Israa'iil maanta ka talisay ra'iisul wasaare Netanyahu iyo xisbigiisa Likud la yiraahdo yani halkeebay kaga jiraan iyadoo dalka Israa'iil ay Yahuud yihiin because the caalamka oo dhan basaaska wadamada waxay kala baxaan conservative iyo maaragtay liberal marka cid kasta waxay leedahay conservative ama dad waxay leedahay xag jira oo dhinac maaragtay u janjeeya oo aad hidaha ugu adag hiduhu marka waa labo hidaha dunida markaas waa labo laakiin mar walba labadaas aad iyo aad bay soo warhayaan midna waa hidda diimeed oo inuu dalku ay islaamiya ama diin raacsan oo qabsado ama ay madax martay tusaale ahaan wadaniyadu laakiin ma kala foga baa la yiraahdaa tusaale ahaan xisbiga labada xisbiga Mareykanka ka jira xisbiga dimuqraadiga iyo kan jamhuuriga midig iyo bidix baa la kala dhahaa bidixdu waa dimuqraadiga bidixdu wuxuu ma aaminsana macnaha qofka kuma khasbayaan inuu faaliyo lahaado oo yani uu wax ku dhaganaado oo maartay kuma khasbayaan inuu diin haysto inuu yani diintii bay aad u naaqusiyeen kuwan marka jamhuurigu laakiin arrimaha diinta ayay wataan at the same time hadana dhinaca wadaniyadana iyaga la yiraahdaa mar walba way ka wadanaysan yihiin kuwan baa la dhahaa saas la dhahaa marka xisbiga Likud la yiraahdo waan u jeednaa waa xisbi marka wadaada waa xisbi wadaadada Yahuudda oo wadaadada Yahuudda ay ugu badan yihiin ama dadka aad iyo aadka u kakan ay ugu badan yihiin Netanyahu wuxuu kamid yahay dadka marka aadka u kakan halkaas marka waa qoliyahaas inaga يعني dadkaas inaga noloma ogolaba dad noocaas aynu samaysano inaga noloma ogolaba oo qofka ama diin badan lagu arko ama wadan lagu arko xaq jir baa loo bixiyaa moogta inaga noloma ogola laakiin way jiri karaan dad ama ururo inaga u janjeera dhinaca wadaniyada way jiri karaan oo ku adag dhinaca wadaniyada iyo dhinaca dhaqanka iyo way jiri karaan oo mustaqbalka weynoo imaan doona ama shakhsiyaad baad way naqaanaaba madax Soomaaliyeed oo yani arrimaha ku wanaagsan way jiraan oo runtii way jiri karaan laakiin waxaan ka wada waxa weeye marka arinta marka la yaabka ah ee Arab iyo adduunka oo dhan iyo xeelerayaasha xataa kuwa reer galbeedka ay la yaabeen waxa weeye dal Carbeed oo khariijka ku yaala sidee ay heshiis oran galay Likud xisbiga Likud oo ah xisbiga meesha ugu adag ka istaagay in uu dhul Falastiin oo dhan qaato waxa loo yaqaan nidaamka dhul qabsiga iyo isballaarinta dhulka cusub ee daanta galbeed ugu badan qabsaday weeraradii ugu faraha badnaa uguna foosha xumaa ee qasal lagu qaaday ee caruurta yaryar ee faraha badan ee 1300 ee caruurta agaariyeen ee ku dhinteen 2014 kii ugu dambeeyay 3-4 jeer oo weerar xun u ka dhacay kii ugu dambeeyay ka ahaa weeraradii ugu badan ee kale ka geystay dalalka kale ee Carbeed ay kamid yihiin Suuriya oo dhul badan oo Suuriya leedahay Lebanon burburiyay yani afkaartiisa oo dhan ay ku dhisan tahay in Israa'iil la balaariyo oo ayagu waxay aaminsan yihiin xataa xisbigan Likud ama Yahuudda wadaadada ah dadka Yahuudda ah kitaabka horahaya ee Yahuudda asalka ah waxay aaminsan yihiin xataa in Madiina lagu noqdo dhulkii Yahuuddu lahayd oo dhan ayay leeyihiin aakhirka in lagu noqdo oo Masar waa in lagu noqdo oo yani maaragtay inkastay Masar oo kale isku khilaafsan yihiin oo khilaaf ka jiro Masar oo sababta khilaafka uga jiro waxa weeye kooda taariikhda sida waxaan u yaqaan way og yihiin Masar inay marka horeba ay ku tageen as immigrant inay ku tageen oo ay ku tageen yani ay ku tageen sidii soo galootaan ay ku tageen oo xasuuso Masar xilliga ugu horeysay ee tageen Yahuuddu waa xilliga Nabi Yusuf waa tii adoon haanta loo geystay markii ceelka walaaladii ku rideen waa tii marka uu madaxda ka noqday Ilaahay awoodda siiyay iyo xigmadda uu ka siiyay kadib waa tuu qoyskiisa u yeeray ugu yeeray dibadajinta halka ugu sameeyay marka xageebo ka tagay ardu Sham dhulkan Sham bay joogeen marka waa tii halkaas ay degeen aabihi waa halka ku dhintay Nabi Yacquub halka ku dhintay kadib waa tii halka ku bulaaleen in badan deganaayeen حتى مركي موسى السودري واتيو موسى لها دتك يقدر حاجة يقدر لكم هذه أصل كمان كلنا يواي لكن واتي لقوا أدون صدي مركي دم فرعيين تبركي ودك قصير دتك قبضيين تا ودك إسكالها أود مركي كل نقطة ساس أي تحي وعيارها دستور كحسب كان لكل اللي هذو وعيارها كتير كمتة وعيارها كتير لكل وعيارها وأصلا دينته وعيارها أيجو
ay u arkaan inay dantooda taa oo dhan baa ku jirta oo ay maartay aaminsan yihiin inay ku dhaqmaan oo ay tahay dhulkan xataa quraanka qayb ay ka qaateen waxay leeyihiin xataa quraanka wuxuu noo ogol yahay in lagu yiri dadkood ka sareynaysan oo kale ayagoo jilladaya way cawajayaan moogtay macnaheedu bay cawajayaan say rabaan bay u dhiganayaan waayo waxay rabaan inay dadka ku ababiyaan dadkooda inay ka dhaadhiciyaan taas oo yiraahdaan wadankan idinka laha marka urur yani foundationka ururka ama wiirta ururka ama afkaaraha ururka ama aragtiyada iyo yoolalka uu ku taagan yahay wixii fishinka ururka oo dhan waxa weeye in yuhuudda ay bariga dhexe ayadu iska leedahay asal ahaan ay lahayd loogu yimid ayay aamsantay loogu yimid يعني فيري مركا تاريخ ذا أو دن مركا لقى كتبتنا كتاب التوراة يجلسي حتى مركا تفيرسه ويعضها حتى مركا يقوليسي أي تجان مدينة لكن حجاز قارتي يقوليسي أي تجان ويعضها تنقل أنا وبعضها سورة يوسف سوي عمد بوشة كان سوادي عركي ويعض تاريخ ذا وايس كوميت تنقل أي مركا نمك كتبته هذا قراية تاريخ ذا يجا أو قرآن وحصل له وده تشلدي waxaa soo wada jaladay weeye oo taariikhdii wala wada xumeeyay oo dagaaladii oo si kala loo dhigay oo kitaabkii Tawraad oo ay maartay bedeleen waaye oo marka sidaas ay awaamirtooda ama waxyaalahan ama afkaarta xisbigan aaminsan yahay ay rabaan in hadhowtana amar ahaan ka dhigaan oo ay socodsiiyaan sida daraaddeed ay u leeyihiin dooxadan la yiraahdo Jordan Valley iyo badan la yiraahdo badan Bahr Mait oo dhan annaga leh Golan Heights annaga leh ama buurahan Golan Heights ee Suuriya ka qabsadeen Suuriya qayb ahaan baanu leenahay Lubnaan markaad fiirso khariirada ku jirta xisbigooda ku jirta Lubnaan barkood ama badankooda oo dhan annaga la haajir nabi leeyahay annaga wana la barkiciyay waa dhulka wana laga kiciyay jasiiradda carabta wana laga saaray laakiin dad dhulkan leh oo ilaahay ardu xijaas baanu leenahay baanu hanay bay marka dadka marka carabta ah ee aqoonyahanka ah ee arrimaha ka hadlaya marka fiirso afkaaraha iyo qoraalada ay ka qorayaan waxay leeyihiin xataa waa dadka waxaan ka hadlayaa dadka loo yaqaan dadka qoonyar socodka ee ayagu leh wardeyle sidan lagu noolaa karo oo in laba dal waxa loo yaqaan xalka labada dal bay aaminsan way wadadka afkaartoodu ay dhaxdhaxaad ka tahay aaminsan in laba dal Israa'iil dal laga dhigo yes Falastiin dal laga dhigo oo maartay waxa loo yaqaan two country solution hala sameey oo xalka labada dal baa la yiraahdaa marka ay qoraalada qorayaan waxay leeyihiin imaaraadka carabtu maxaa ka khaldan ururkan meesha haystaa ma aha ururkii lala hadli kari lahaa waa ururkii ugu kaknaa ugu adadka ugu maartay fogaa ugu afkaarta qalafsanaa sidee loola hadli kara yaani in dawlad carbeed ay la hadasho ururkan oo ay xidhiidh la caadiyeysato oo ay cilaaqaad yeeshaan oo ay cilaaqaad soo saxdaan oo heshiisiyo oo dhaxmaraan maba laakiin dadka yuhuudda ah ayaguna waxa jira dhexdhexaad oo waxa jira diidan Netanyahu oo leh dadkan dhibaato u qoshaya dhibaato gelinaya ayaguna saas kale aaminsan waxay kula yihiin carabtu hadii ay heshiis dhab ah ay doonayaan oo heshiis wanaagsan oo u taabagala oo dhinaca Israa'iil uga taabagala ay doonayaan waa in ay dadka fuli kara la galaan bay kula yihiin xisbiyada fuli kara waa inay la galaan saas xitaa ayagu laftoodu qabaan oo saas ay leeyihiin oo Netanyahu waxay kula yihiin waa nin nabadoon ma nin nabad jecel maaha nin hamigiisa iyo afkaartiisa iyo waxyaalaha uu ku shaqeynayo iyo ideologiyada oo dhan uu wata ay tahay mid fog weeye oo carab oo dhan ayaan qaadanaya saas oo ay tahay dara waxa jira qiraal ah ayaa jira in Netanyahu uu yahay nin aad u galaan gal badan marka ay timaado dhinaca arrimaha dibadda carabtana si uu u galayba dadka qaarkood waxay leeyihiin waxa laga yaabaa in shirkad hay'adiisa la yiraahdo Mossad dhinaca sirdoonka ay harimo badan qabatay oo dadka qaarkood ciraad loo haysto bay leeyihiin hadda wargeyska la yiraahdo Yodiath Arohnath la yiraahdo ee dalka Israa'iil ka soo baxay wargeysyada ugu dhow wuxuu leeyahay 2 sano ka hor ayuu tagay Netanyahu ayuu tagay dalka isku tagay Imaaraadka Carabta 2018 buu tagay wuxuu la kulmay Mohammed bin Said Al Nahyan buu la kulmay ninka dalkaasi Layliya ayuu la kulmay markaas waxa uu la sibdiyay hadda tarayo caamka baa loo sheegaya oo la khaldayaa oo la leeyahay saas wax u dhaceen laakiin waxaanu waa wax qoto dheer laakiin waa la ogaa waligeed loo hadbay inay cilaaqaad lahaayeen laakiin cilaaqaadka waxaa loo maleeyay mid dana yar sirdoon la yar shaqeynaya arrimo maartay kale oo amniga laga wada shaqeynay waxyaalo noocaas oo kale baa loo maleeyay laakiin waxa la leeyahay sida ninka la yiraahdo ninka la taliyaha amniga qaranka ee Israa'iil ninka la yiraahdo Meir Ben Shapat oo kale waxa la leeyahay maalin walba wuxuu tagi jiray dalka isku tagay Imaaraadka Carabta waa ninka Netanyahu gacanta midig u ah marka u fiiriso dalalka Carbeed hadeerto waxay noqdeen wax maaragtay
xaaladooda iyo marxaladooda aad iyo aad u adagtahay. Hadda waxaa isweydiin leh oo la isweydiinaya dadka Carbeed, shacbiyada Carbeed, shucuubta Carbeed halkee bay jiraan, seebay yihiin, xaalkoodu waa maxay? Horta runtii shucuubta Carbeed khaliijku way ka duwan yihiin inta badan dadkan kale ee Carabta ah ee ku dhaqan dalalka kale ee Carbeed, sida dadka jooga Morocco, dadka Tunisia jooga, dadka Libya jooga, dadka jooga Masar, kuwa Suudaan jooga, kuwa jooga Yemen, kuwa jooga yani dalalka Carbeed kale ee jooga Carabta. Markaad fiiriso aad si wacan aad u baadho wararkooda ama daraasaad cilmiyeed aad ku eegto, way wada kala duwan yihiin. waxyaalo ay kala aaminsan yihiin way jirtaa. qaar dalkooda aad u jecel yihiin oo maartay dalkooda aad u jecel yihiin, qaar diintaba wax doon saameysan shaqaba ku lahayn oo waxa soo saarta dadkan muslim wala iskaga sheegayaa markaad fiiriso tusaale ahaan dalalka Lebanon iyo Tunisia kamid marka saa u fiirso waxaan ka hadlayaa dhaqanka dadka iyo marka dadku siday u nool yihiin, bulshadu say u labisan tahay, akhlaaqiyadka dadka, bulsho ahaan say yihiin. markaad fiiriso culture-kooda markaad qaadato tababar ama aad daawato dhowr muuqaal oo documentary laga soo duubay oo aad u fiirsato waad yaabaysaa. yani waxaad oonaysaa yani waxaad markaad ku compare garayso haddana waxaad arkaysaa oo kuu soo baxaysa dadkan dalkoodu waa dhisan yahay, maartay masaajidoodu waa camiran yihiin, ammaan bay haystaan, diin isuma dilayaan. markaad compare garayso haddana Soomaaliyaad compare garanaysaa kale qof Soomaaliya tahay moogtay Soomaalidu masaajidka ka wada buuxaan, gabdhuhu wada xijaaban yihiin, dadku diinta waa jecel yihiin, haddana dadkii bay dilayaan. moogtay ayagu way isleeyahay. marka waxaad oranaysaa dilka dadka iyo banaysiga dadka in la dilo qofka iyo inaad dhiigisa banaysato waa laba qalaqadiyood. culimadu aad bay uga hadleen, waad aragtay. banaysiga Ilaahay baa waxna baneeya waxna xaartimeeya. markaad wax banaysato waa gaalnimo moogtay inaad wax u banayso. markaad fiirso marka inagu halka inta taagan haddana waad confuses waxaad oranaysaa meeshan waxaad u baahan tahay in aad laga sameeyo yani baaritaano aad u qoto dheer. marka Carabtu saas ay tahay waxay u badan yihiin marka dad dalkooda jecel. marka la soo koobo waxaana soo oran kartaa marar badan diinta waxay wadaniyada ay uga dhow yihiin sida Masar oo kale. markaad fiiri marka meesha marka arinta aan u socdo waxa weeye dadka khaliijku waxaa laga xayiray siyaasadda dadka caadiga ah marka laga reebo dadka political classka ku jira qoysaska talada haysta iyagoo xoogay qof hoose maaragtay habaqla ah meesha iskaga yimid marka oo shaqada loo siiyay ama shaqo loogu dirsaday waa laga xayiray waana la maaweeliyay. maxaa lagu maaweeliyay? adduunya lagu maaweeliyay. nin walba waxa loo yahay marka 12 sano jirto iska guurso, 4 naagood guurso, school fiican dhigo, qurbaha loo soo dirayaa, waxa loo soo dirayaa Canada, Singapore baa loo dirayaa, Australia loo dirayaa, Mareykan baa loo soo dirayaa, Britain baa loo soo dirayaa. dawladda scholarship ka bixinaysa maxay tahay sheeg imtixaanada waxa uga shaqeynaya lacag badan baa loo soo dirayaa. imtixaanada dhalinyaro kale uga shaqeynaysa oo lacag siinaya yani kalaabadaas iska aadaya moogtay. marka waad la yaabaysaa noloshooda oo dhan. marka waa saas waana taata keenaysa inay muddo qaadato inay marka dadkan kacaan. waana marka haddii aan marka dadkaasi Ilaahay siin hogaamiyaal fiican oo Ilaahay ka cabsanaya oo yani mustaqbalka adduunka ka fikiraya iyo caalam islaami ka fikiraya dad yooga kale walaalahooda dhibaato lagu hayo, qiyamka iyo faaliyugu inaysan dhumin carabnimo ka fikiraya hadaysan haysan godka gelaya. marka inagu halkeeban taa kaga xidhan waxaan taa kaga xidhannahay. anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliya haddii wax yaroo diinta ku saabsan haddii wax laga sheego markii waa kacaya. waa waxyaalaha tusaale ahaan la xiriira diinta in wax laga bedelo kale ama waxyaalaha maartay diinta faqad ku laakiin waxyaalaha diinta burburiya Soomaalidu kama kacaan ee ayagu ay sameeyaan. waayo tusaale ahaan Soomaalidu waa dad wada muslimiin ah oo sunni ah. hadday diin ahaan diiniya ka dilaacay diin ahaan baa la isku leeyahay cid kaliya oo ka dhiiday ma jiraan, laakiin waa la kala safto. waayo waa dad afkaarta in lagu jiito u fudud moogtay. tusaale ahaan dalka oo kalena Soomaalidu kama kacaan. haddii dalka kale badh la iibiyo Soomaalidu ka cimiso waxaa laga yaabaa in ninka dalka iibiya uu yiraahdo reerkeena dan ugu jirtaa, qabiilkeena ayaa gobolkan iskale, inaga deena waxaa dan ugu jirtaa Kenya, waxaa dan ugu jirtaa Ethiopia, waxaa dan ugu jirtaa Suudaan baynu la heshiinayna. kadib waxaa laga yaabaa dadkii gobolkaas oo dhan joogay oo 1 milyan inay raacaan. marka intii kale waxaan oranaysaa dadkii oo dhan baa la socday maxaan ka qaban karnaa yani agfiiri. marka waa inaad diinta marka iyo qiyamka iyo yani wax walba marka ugu dambaysa haddii ay heli lahaayeen dad sidan oo kale ah hogaamiyaashan Carbeed oo kale ah Maxamed bin Said oo kale ah Soomaalida waxaan u malay lahayd hogaamiyaha hadday saas kale ahaayeen inta ay kulaylka ay dhiigayso ku jiri lahayn ama uu dalkoodu u dhisnaa lahaa waxaan u maleynayaa diinta wax yar bayna kaga sii hadhi lahayd oo maartay inaga sii hadhi lahayd. marka arrimahan cusub iyo sida ay arrintan u ekaa karto mustaqbalka iyo waxyaalaha kale ka dhalan kara ayaynu eegi doonaa iyo mustaqbalka ururada islaamiga ama caalam islaam sheegta.